بسم الله الرحمن الرحيم waxaan doonayaa inaan kaga jawaabo hadal ka soo baxay gudida waalidiinta iskuulka Abaarso taariikhdu markay ahayd 13 bishan labaad 2022 hadalkaas oo ahaa in Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon ku sheegeen inuu yahay kaafir macnaha gaal diinta islaamku aaday wax xarimtay in qof muslima waa shahaadanaya lagu sheego inuu yahay gaal xukunka diinta islaamku ay ka qabto qof muslim oo gaaloobina waa in la dilo marka taa macnaheedu waxa weeye ama hadalka gudidu uu muuqda in Cabdimaalik ay ku banaysanayaan dhiigiisa sidoo kale gudidu waxay sheegtay hadii Cabdimaalik loo xukumi waayo oo macnaha xukun dusha looga saari waayo baadila iyo xaq darra iyo dambi aan u gelinba in iyagu ay sharciga gacanta ku qaadanayaan oo iyagu ay la xisaabtamayaan Cabdimaalik haddana nahay asxaabta Cabdimaalik iyo ehelkiisaba waxaanu aad uga warqabnaa xaaladda Cabdimaalik maadaama Cabdimaalik ay bishan labaad saddexdeedii ay maxkamadda gobolka Maroodijeex ay amar ku soo saartay inuu Cabdimaalik wax dambi lahayn isla markaana ay raacis amar ah in Cabdimaalik uu isla maalinta helo xorriyadiisii Cabdimaalik wali xabsiga ayuu ku jiraa Rafaan ayaa dib looga qaatay marka waxaanu ka warqabnaa xaaladda hadda Cabdimaalik iyo damac iyo dabinada la damacsan yahay Cabdimaalik in loo maleego doodu maaha mid u dhaxaysa Cabdimaalik iyo waalidiinta ama gudida waalidiinta waxay u dhaxaysaa Cabdimaalik iyo cida daaha dabadiisa ka maamulaysa gudidan iyagu mar walba iska soo horeysiya kuwaas oo ah kuwa Cabdimaalik uu halistooda uga digay ummadda Cabdimaalik ummadan halista uga digay waxay ahayd maamulka dugsiga iyo macallimiinta keenayaan macallimiintaas oo ahaa kuwa lesbiana kuwa dhaqamo guracan faafinayay oo bulshaduna ay ogeyd oo baraha bulshada iyo warbaahintuba ay ka hadlaysay sidoo kale waxa uu uga digay bulshada iyo iskuulkaaba in aan ardayda looga dhigin tusaale fiican nin khaniisa oo la wada garanayo ninkii wariyaha ee iskuulka yimi ee hablaha iyo ardayda iskuulkaba sawirada la soo galiyay ee baraha bulshada la soo dhigayay sawiradaana waxa qaadayay maamulka iskuulka iyo ardayda iyagana baraha bulshadooda ku baahinayay haday tahay facebookadooda twitteradooda instagramkooda iyaga ayaa baahinayay oo si xor u soo dhigayay meelaha ay leeyihiin waxay ahayd in gudida waalidiinta iskuulku ay la xisaabtamaan cid ubadkooda u ogolaatay in khaniisa oo dunida laga yaqaan uu sawir la galo isla markaana la baahiyo laakiin ma yahayn in Coldoon ay marba meediyaha u soo fariistaan oo ay u hanjabaan oo ay ku tilmaamaan inuu yahay gaal isagoo Coldoon ugu nasteexiyay waalidiintan iyo ummadaba in aan bulshada looga digo halisaha ay maleegayaan maamulka iyo macallimiinta dugsiyadaasi waxay ku doodaan oo ku celceliyaan Coldoon badkayga ku sheegay gaalo ama ku sheegay khaniisiin haddaan si kooban uga jawaabo Coldoon haba yaraatee meel uu ku qoray ama meel uu ku yiri ardaydaas gaala ah ama ardaydaas khaniisiin ma jirto gudida waalidiintu iyaguna waxay meediyaha ka yiraahdeen oo gudida oo dhammaystiran gudida waalidiinta oo dhammaystiran waxay Cabdimaalik ku sheegeen inuu yahay gaal iyagoo hore Cabdimaalik ugu eedeynayeen ubadkooda gaalaysiiyay marka waxaan ugu baaqnaa cid kasto ku shaqale arinta ama ay khusayso in talaabo laga qaado gudidaas iyagu shakhsiga dulman ee xabsiga ku jiraan maanta istifaaci karin ee maanta jawaabi karin inay markasta meediyaha la soo fadhiistaan hanjabaad iyo sidoo kale aflagaadeyn iyo sidoo kale inay diintaba ka saaraan ay ku sheegaan gaal dhammaan ehelada asxaabta qaraabada iyo inta ku hayba Cabdimaalik Muuse Coldoon oo xaaladiisa la socotaan halkan in badan idinkooda wadaagnay ayaa waxa ay cambaareeyeen hadalkii ka soo baxay gudiga iskuulka Abaarso iyo waalidiinta dhigata caruurtooda iskuulka Abaarso oo si wada jira intay shir jaraa'id u qabteen halkaasi ku gaalaysiiyay kuna xukmiyay Cabdimaalik in uu dil mudankiisa yahay isla markaana hadii uu soo baxo oo la soo sii daayo uusan iyaga ka badbaadaynin waa hadal ka careysiiyay dhammaan inta danaysa arinta Cabdimaalik qaraabadiisii ehelkiisaba ha u sii xaq jiraan arrinkaasi dhalinyaro badan oo aqoon-yahano ah professor ah waxgarad ah iyo waalidiin iyo culimo diin ayaa ka hadlay qofka mu'minka ah ama qofka islaamka ay tawxiidsanayo qofkii ku tilmaamo inuu gaal uu yahay uu diinteena maxamediyada waxa ay qabtaa qofkaasi in isaga uu diinta ka baxay dabcan in gudi muxuu ahaa waxgarad sheeganayo rag iyo dumar bala leh intay meel soo fariistaan isla markaana Cabdimaalik Muuse ay ku xukmiyaan xukun gaalnimo
waxay noqotay mid dhammaan kicisay shucuurta dadka daneeya arrimaha diinta iyo sidoo kale ehelada cabdimaalik wiilkani shaashada idinkaga muuqdo waxa uu si kulul uga hadlay arrinka cabdimaalik isla markaana hadal gar ah ayuu soo jeediyey ma ahan in qof la aflagaadeeyo dabcan ninkani dhalinyarada ah ee ka hadlaya arrinta cabdimaalik ma uusan aflagaadeynin ciddii ku xukmisay cabdimaalik gaalnimo iyo cidda u xirnaa iyo dowladda midna waxa uu ka hadlay hadalka meeshuu ahaa oo ah qofka islaamka ah ninkii yidhaahda gaal in isaga uu gaal yahay isla markaana sidaa diinta uu uga baxayo ayuu hawada u soo mariyey wuxuu sidoo kale soo mariyey ama uu sheegayba aflagaadooyin waaweyn oy ugu weyn tahay gaalaysiinta cabdimaalik muuse coldoon oo kitaab jaamaca isaga oo gacanta ku haya yidhi kitaabkani waxa uu qaba hadla igu xukumo in gaalnimo lagu xukumo weliba xukunkiisa la yidhaahdo waa dil wallaahi dhammaan inta yani muxuu ahaaye shahaadada ama tawxiidka qiraysa ayaa waxa uu ku noqday hadal dhimbil ah oo guba ayuu ku noqday waxaana filaynay in waxgarad badan iyo culimo badan arrinkaasi ay ka soo jawaabaan oo ka hadlaan oo dadkaasi xukunkooda waxa uu noqonayo ay caddeeyaan dabcan inaguna waxaa waajib ina saaran ah oo mar walba inaan ka hadalla ah ciddii yacni u arkaysa si kale ha u aragto laakiin innaga waxaa waajibka annaga ah oon dabcan gudanaynaa in cabdimaalik uu yahay nin mu'mina isla markaana samafala ah oo bulshada lafdhabar u ahaa mudnaantuna ay tahay cabdimaalik in uu helo xaqiisa ama cadaalad uu helo yaa laga rabaa cadaalad in uu u suubiyo cabdimaalik waxaa laga rabaa markii laga imaaday ama laga yimaaday maxkamaddii gobolka maroodijeex go-aankeeda markii laga imaaday ciddii racfaanka qaadatay waxa loo qaatay waa waxaanan inagu garanayna ciddii qaadatay racfaanka ee tiri cabdimaalik wuu sii xidhnaanayaa isagoo dembi lagu waayey weliba ciddaasi ayaa waxa ay qaadanaysaa sida qoraal ka soo baxay qaraabadiisa qaar ka mid a oo bartiisa twitterka ama bartiisa facebooka lasoo dhigay cabdimaalik ay dhaheenba waxaa mas-uuliyadda iyo caafimaadka iyo badqabka cabdimaalik qaadanaya cadaaladna yacni looga baahan yahay in ay sameeyaan oo alla oga baqaan arrinta cabdimaalik ciddii ayada ahayd ee racfaanka qaadatay dabcan oo yacni muxuu ahaayey in uu sii xidhnaado go-aankeeda yacni uu u meel maray waxaa sidoo kale ehelada cabdimaalik ka soo baxay in ay yidhaahdeen cabdimaalik waan la soconnaa xaaladiisa caafimaad waa taam waxba kama khaldana haddaba hadhow haddii yacni qofkaasi mentally uu iska bedelo ama maskixiyan uu isbedelo waxaa bedelay ciddii uu xidhnaa la duryaa iyo la sixiryaa iyo wax lagu sameeyaaba ciddaasi ayuu u dilan yahay haddii ninkaasiyo wax si kaa uu soo baxo hadalkaasina waxaa lasoo dhigay bartiisa facebooka ee bejka uu ku leeyahay waxaanu aada uga warar qabnaa xaaladda cabdimaalik maadaama cabdimaalik ay bishan labaad saddexdeedii ay maxkamadda gobolka maroodijeex ay amar ku soo saartay inaanu cabdimaalik wax dembiye lahayn isla markaana ay raacis amar ah in cabdimaalik uu isla maalintaa helo xorriyadiisii cabdimaalik weli xabsiga ayuu ku jiraa oo racfaan ayaa dib looga qaatay marka waxaanu ka warar qabnaa xaaladda hadda cabdimaalik iyo damac iyo dabinada lala damacsan yahay cabdimaalik in loo maleego doodu maaha mid u dhaxaysa cabdimaalik iyo waalidiinta ama gudida waalidiinta waxay u dhaxaysaa cabdimaalik iyo cidda daaha dabadiisa ka maamulaysa ee gudidan iyagu mar walba iska soo horeysiiya kuwaasoo ah kuwa cabdimaalik uu halistooda uga digay ummadda